maxaa naga caawin kara inaan biyo badan cabno buraashadaha cabirka leh waxay naga caawin karaa inaan biyo badan cabno waxay noogu jirtaa in buraashada aan soo qaadano oo aan biyo ku shubano loo faa'iido leedahay faa'iidada kood waxaa waaye inaan ogaano cabirka biyaha tan oo kale hadda waa 2 litir waxaa jirta mid ka sii yar oo 900 ah mid 1 litir muhiimaddu waxaa waaye inaan ogaano ko biyaha cabno intay yihiin number 2 meel dheer kama raadinayno agteena dhiganayna marka agteena dhigana maanta marka biyo u baahanaba waa cabeena waxaa laga yaabaa biyaha markii naga fog yihiin inaan ka caajisno oo aan cabina laga yaabo inta dooni leed in iska dhaafta laga yaabo saas ogeed labaas faa'iido ugu jirto oo way naga caawin kartaa waxa isweydiinayna marka goormee bilownaa cabitaanka biyaha sidoo kale biyo noocay cabina waxa cabina biyaha cabina sidoo kale inaan subaxeena ku bilowno biyaha cad waxay keentaa kow madax xanuunka naga yareynaysaa kow sidoo kale waxay ka hortagtaa dhagax biyaha ku sameysmo waxay kala nadiifisaa mindhicradeena waxay nasiisaa tabar energy way nasiisaa maskaxdeena waxay tahay waxay kor u kordhisaa nashaadka iyo fadhiga saarada ayay kordhisaa sidoo kale waxay ka hortagtaa calool fadhiga waxaan kugu soo dhaweynaynaa sheer xirfad oo ah hoyga barashada xirfadaha casriga sheer xirfad qaybta caafimaadka waxaan kugu diyaariyay koorsooyinka caafimaadka ee aasaasiga sida maternal skills course marxaladaha hooyada caafimaadkeeda lagu la socon karo koorsada nafaqada nutritionka jirkeena nafaqooyinka u baahan yahay ku baranayno waxa kale kugu diyaariyay emergency care qof hadduu xaalad degdeg ah galo sida uu caawin lahayn iyo barashada daawada pharmacology linkiga hoose ayaa idin soo dhigayaa koorsooyinka